waxaad moodaa af soomaaligii waayadan dambe inuu sii baaba'ahayo cid haddee u taagan oo inay naxwihiisii iyo sidii u dhisnaa u ilaalisa diyaar u ahaan inayna jirin. maalin dhowta anoo meel fadhiya ayaan wiil u dirsaday caagad aan weyse rabay inaan ku shubto. keerkaana mid kale uu ii sii diray. dhawaan oo kale uu ii yimid wuxuu igu yidhi caagadii kuuma keenay. caagadii kuuma keenay wuu qallibayba dib buu u dabagadiyey. waxaa keenayana af soomaaligii yaa nooca iska noqday. waxayaana hadalka kusii kusii fogaanin. halkan waxaa ka muuqda naxwaha af soomaaliga. waxaa la qoray waagii dowladda Soomaaliya jirtay buugan. ciddii qortay iyo sida loo qorayna insha Allah mar kale aynu sheegi doonaa bal aynu akhrino. barashada afku ma aha inaad xaweeye garatid erayada iyo macnahooda oo kaliya waa inaad baratid sida hagaagsan ee erayadu isu raaci karaan iyo sida ay isula jaan qaadi karaan, taas oo lagu gaari karo maxay barashada naxwaha afka Soomaaliga. naxwuhu wuxuu ka samaysan yahay waxa weeye xeerar wada shaqayn ah ama wada shaqeeya laguna barto maxay sida wanaagsan ee afka loogu hadlo loona qoro. naxwuhu wuxuu u kala baxaa 3 qaybood. qaybta hore waxaa lagu magacaabaa cod, waxaana lagu bartaa sida loogu dhawaaqo iyo sida loo qoro erayada. qaybta labaad waxaa lagu bartaa magacyada qaybaha hadalka, waxaana lagu bartaa eray kasta qaybta uu ka tirsan yahay. qaybta saddexaad waxaa lagu magacaabaa dhismaha weeraha, waxaana lagu bartaa sida hagaagsan ee qaybaha hadalku ay isu raaci karaan marka la dhisayo weeraha oona la doonayo in laga ilaaliyo khaladka ka imaan kara xagga naxwaha. waayahay waxba buugga intuu waxbuu ka tilmaamayaa aan ka soconno. wuxuu yidhi codadka maxaa la yidhaahdaa? codadka ama dhawaaqa afkeennu waxay u kala baxaan 2 jaad, kuwaas oo kala ah shaqallo iyo shibane. shaqallo maxaa laga wadaa? shaqallo dee shayga haddii shaqal loo sameeyo salaada caagad baad doontaa inaad qaadato, waa laga yaabaa lalminteeda inay ku dhibto ama way kaa kullaanba ay baad galgelisay bahalgal aad gashatay oo maraad u samaysay maanta dhan baad tunka ku wadani kaama kullaanayso. shaqal wax haddii loo sameeyo dee wuu qurxiyaa. af soomaaligana shaqalkaa wuu hagaajiyaa. tusaale ahaan haddaad xarafka da iyo da kale aad isu keento haddee da unba iska noqon, laakiin haddaad dhexdooda wax gelisay macna isu bedeli oo see weye da soo maa. da'dii kale intaadan gaadhin baad keentay dad bay noqotay. marka yaanan sii dhexgelin waxaan leenahay shaqalku waxa weeyaan isagoo waaweyn a e i o u, isagoo yaryarna dee waa aadii un. bal marka si aynu macno ugu samayno xaraf geli ama shibano geli. af baan leenahay. af dee af miyaad u baahan tahay? af waaka iyadana shaqal geli edeg wey. bari iyadana shaqal geli il wey. oona iyadana xaad gelisa shaqal yaan odhanine shibano geli waa or. oona iyadana shibano geli waa ul. haddaba shaqalkiioo 2 ah keen isagoo waaweyn. eedii waaweyn idii waaweyn i, oodii waaweyn oo, iyadoo yaryar oodii uu. bal waayahay shibano geli si ay macno inoogu sameeyaan. 2aadii macnaan gelin iyo macnaha ilaa soo maaha. hal shibanaynu gelinaynaa waxaan dhahaynaa r
R واللبا يرى لواح بيسوي بودي مركا iyadana bal shibana gali eebo tawaatan wax lagu dilo eebadu waa waran baashan waran ahaanta ee afka dhooban way wax lagu dilo iidina iyadana bal haweeye shibana gali waa waa godka dee qofka markuu dhinta la geliyo oodii laba shaqala iyadana haweeye shibana gali watan xoolaha lagu oodii laba shaqala shibana gali way waxaan soo baranay shaqalo iyo iyadoo jumla laga dhigo intii la raaciyay shibane macna inoo samaysay waxay noo dhiman shibanihiina waaka soo waaweyn iyo soo yeera waa ba ta ja ha kha da ra sa sha da a ga fa qa ka وكوا marka sida hadaad u fahanto shaqal iyo shibana aad u fahanto dhawaan isku geyn bay kaaga baahan yihiin mooyeen wax badan oo baahana laakiin ilaalin bay leeyihiin in la ilaaliyo kuma keenay ma ku leeyahay ma ku keenay bay ahayd cagadii ma ku keenay kuma keenay haddaan wixii dib u akhriyo xaraf jaban jinna ma akhriya leeyahay mogti ha inta waa gool insha Allah dib aynu faahfaahin doonaa aad baa mahadsantihiin